shirkani oo muddo 4 casho ah ka socday degmada Qoyta oo ka tirsan gobolka Togdheer ayaa daarana ka tashiga iyo xulidda xildhibaanada golaha deegaanka iyo baarlamaanka ee beelaha gobolada Togdheer Saaxil iyo Maroodijeex waxaana ka soo qayb galay shirkaasi salaadiin wax karad aqoonyahan haween iyo marti sharaf tiro badan waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay xildhibaanadii la soo xulay iyo waliba salaadiin cuqaal iyo wax garad ka soo qayb galay shirkani duco iyo isxog waraysi buu ahaa maalintii koobaad maalintii labaadna waxay ahayd qaashi iyo dhaqankii saddexaadna waxay ahayd qabashada liisaska musharaxiinta maantana waxaynu u gudubnay maalinkii afraad oo shirku inoogu soo xidhmay waa shirkii dhaqanka iyo isu dhammaystirka waa shirkii siyaasadda iyo kala saarka musharaxiinta madasha waxaa ku soo gabagaboobay shirkii tawfiiqda iyo talada Axmed Xasan iyo Gaashaanbuur shirka halka lagu qabtay wuxuu ahaa shir dhaqan oo laga tashanayay aayaha Axmed Xasan iyo Gaashaanbuur kan ku faraxsanahay hadaan nahay hablaha Axmed Xasan dhamaantaya waan ku faraxsanahay waxaan Ilaahay ka baryaynaa hadafka iyo himilada aanu leenahay iyo maxaan ku raay shirkan aanu soo qaban qaabinay sidaan doonayno inay noogu dhamaado diyaanu nahay baalkii hablaha ee Axmed Xasan waxaanu taageersanahay maanta dadka madasha isugu yimi shirka ujeedkiisa weyn wuxuu ahaa heer dhaqmeed beeshuna ay si weyn ugu codeyso ayuu ahaa maqsadka ugu weyn deeyeen oo ay go'aamiyeen in aanay musharaxiinta Axmed Xasan iyo Gaashaanbuur ka badan 3 xubnood oo midna uu yahay golaha wakiilada gobolka Saaxil labana ay yihiin golaha deegaanka Berbere iyo Burco xubinta golaha wakiiladu inay ka tartanto gobolka Saaxil lagana dhigay Xirsi Xaaji Cabdullaahi Xaaji Xirsi Odowa waxa kale oo la isla qaatay labada degmo ee eed ah ee reer ku deganyay Muqtaar Daahir Maxamuud Wayi musharax Abukar Bilay Isxaaq kursigan maanta aan reerka ka codsaday ee aan reerka u wado markii aan ka fikirayay ee maskaxdayda aan ku celcelinayay waxa in badan ii muuqatay inuu kursigan noqday kursi si odayaashu inagu celceliyeen kursi waqti dheer inaga maqnaa aynaynu geyno oo ay ahayd inaynu waqti walba aynu haysano waxaan anigu ka sharaxnay deegaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan halkan odayaashayda qiimaha badan leh cidii ay waxay gartaan halkan aan ka qaato mar labaadkana waxaan u mahad celinayaa bulshaweynta Axmed Xasan iyo Gaashaanbuur ay garatay inaan ka mid noqdo musharaxiinta u tartamaysa golayaasha deegaanka maayir ku-xigeenka degmada Burco Maxamed Xoday iyo qaar ka mid ah mudantii lagu soo marti qaaday shirkaasi ayaa ku dheeraaday ahmiyadda shirkani u leeyahay beelahaasi bulan beelaweynta Axmed Xasan iyo Gaashaanbuur waxaan leeyahay waxay soo agaasinteen si aad iyo aad u qurux badan madasha sharafta leh Axmed Xasan iyo Gaashaanbuur isugu timi waa maalintii ugu horeysay inta in leeg oo abtiyaaladaan soo dhex taago waxaan celinayaa beelweynta Gaashaanbuureed Axmed Xasan mar haddii Axmed Xasan iyo Gaashaanbuuri ay soo doorteen xildhibaanadii golaha deegaanka iyo baarlamaanka uga qayb galayay way ku mahadsan yihiin annana waa la qaadanaynaa laga sheegay Axmed Xasan iyo Gaashaanbuurtiisa inay ku tashatay waxaan leenahay Ilaahay talana haydu ku guuleeyo mid ay ku najaxtaan ka dhigo aan halkan ka barakaynayaa shirka maanta ay yeesheen beesha Axmed Xasan iyo Gaashaanbuur waxaan leeyahay ka dhigo shir barakaysan Xasan iyo Gaashaanbuurtiisa iyo xildhibaanada ay soo doorteen iyo dhammaantoodba waa ku mahadsan yihiin anagoo ku raacnay waxa ballan qaadeen iyo waxa la idinka sugayo waxaan idin leeyahay idinkana waxa weeyaan xilkana Ilaahay ha idin fududeeyo waxa weeyaan waana la idinku ridayaa reerkuna wuu idin ballan qaaday iyo wanaaga iyo midnimada iyo wadajirka aan muujiseen beelweyntiina maanta halkan fadhida ee Axmed Xasan iyo Gaashaanbuur idinkoo ujeedadiinu tahay inaa qarankan qaybta ku leediin waxqabadka ku leediin iyo horumarka inta kaga bigintiinba inaa muujisaan maanta halkan isugu soo baxdeen ilaa salaadiintiina iyo cuqaashiini iyo haweenkiini
aad iyo aad bay farxad noogu tahay waan idinka mahad celinaya markaa midinka aad meesha geysanaysaa waa inuu noqdaa nin idinkana idinka maraya qarankana ka maraya markaa waxaanu ka markhaati kacaynaa ragga dhallinyarada maanta halkaa fadhiya inay yihiin rag runtii idinka geysan oo ayaan le Cabdullaahi Jaamac warbaahinta caalamiga SBC magaalada Burco.